komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta dacfadii labaad ee shaqaalaha ka howlgali doona doorashada ku dhaariyay magaalada Cerigabo. Munaasabadii dhaarta kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Sanaag Maxamuud Saciid Nuur iyo Komishaneer Cabdifataax Ibrahim Xasan. waxay ugu wallaahiya oo igu bilaahiya inaan hawsha doorashada ku gudan doono si xilkasnimo daacadnimo leh inaan dhex u ahaado musharaxiinta sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqayn doono meedku wallaahi baasaas meedku bilaahi ba meedku tallaahi ba maanta waxa weeye tababarkii ayaa inoo soo gabagabaya waxaan joognaa jaamacadda Sanaag University tababarka waxaan u kala qaybnay laba qaybood labada qaybood qaybtii hore waan dhameynay qaybtii labaad oo maanta ah ayaa inoo soo gabagabaysa waxa inoo soo gabagaboobay guud ahaan tababaradii ka socday gobolkan Sanaag ee lagu tababaray howlwadeennada ka howlgalaya goobaha dalka ee doorasho oo in muddo aba runtii ka soo socday halkan kuna tababaranayeen qaabka iyo hanaanka ay u qabanayaan doorashada taasoo si hufan saan horena u sheegnay markaan sheegayna uga socday kuna soo dhamaatay si khayra waxaanay tilmaamaysaa inay nagu soo fool leedahay doorashadii oo ajandihii iyo jadwalkii aynu dejisanay ay ka mid ahayd maalmahan oo kale inay dhammaato tababarku oo runtii dhammaaday waxa sidoo kale maanta lagu dhaariyay xubnaha howlwadeennada ka howlgalaya goobaha doorashada in ay hawsha u gutaan si daacadnimo leh oo dhaar dhamaantood ay kitaab gacanta saareen inagoo ku kalsoon runtii inay aqoontoodii barteen dhaarna ku labeeyeen waxaanu ka filaynaaba waa inay u ambabaxaan goobihii ay ka howlgali lahaayeen oo ay doorashada ka qaban lahaayeen. Yusuf Cabdi Xasan Cadde, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cerigabo.